بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بأخيارته هوذا نغلا سعوتاي كسو دوادا داودايال warbixintani waxaynu uga hadlaynaa hadduu alla idimo laamaha ammaanka ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa soo qabtay shakhsiyaad ay sheegeen inay doonayaan in ay qarax ka geystaan magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo la sheegay qaar kamida in ay maalin saddexaad ka imaadeen magaalada Muqdisho dumar ayaa ku jira faahfaahinaya inuu ka bixin doono hadduu alla idmo sidoo kale waxaynu idinla wadaagi doonaa wararkii u dambeeyay howlgallada ciidamada liyu booliska ee ay ka wadaan xadka deegaanka Soomaalida la wadaago dalka Soomaaliya waxa kale oo iyadana warkeenan daawadayaal hadduu alla idmo aad ku maqli doontaan golaha wasiirada dalka Soomaaliya oo la rabay in galabta la shaaciyo oo lagu dhawaaqo ayaan suurtagelin waxaana la sheegay in muran uu ka taagan yahay kursi muhiim ah oo dib u dhigay magacaabista golaha wasiirada kursigaasi iyo waxa uu yahay faahfaahinayaynu ka bixin doonaa hadduu alla idmo taariikhdu waa 2 bisha 8 2022 kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsanne haddii aynu ugu horreynba ku bilowno sida ay dad badanba ka cabsi qabeen ururka al-shabaab ayaa duulaan ku qaaday deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya iyaga oo ka dagaalamay gobolada Shabeelle iyo Afdheer oo ilaa iyo hadda howlgallo ballaaran ay ka socdaan gobolka Afdheer ayaana ay ciidamada liyu booliska sheegeen in ilaa iyo hadda shakhsiyaad baxsada ay cayrsanayaan iyada oo dadka deegaankana ay soo qabteen shakhsiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ee lagula dagaalamay gobolkaasi Afdheer xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo deegaanka Soomaalida ayaa iyadana howlgallo ballaaran ay ka socdaan balse aynu ku horreynaa ciidamada ammaanka ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaad markaasi ay sheegeen inay doonayeen inay qarax ka geystaan magaalada caasimadda ah ee Jigjiga hay'adaha amniga ka howlgala magaaladaasi ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen laba shakhsi oo tuhmanayaal isla markaasina lagu qabtay waxyaabaha qarxa oo la sheegay in ay doonayeen inay ku geystaan qarax magaaladaasi ay ka sameeyaan midka labka ah ee dadka la qabtay dabcan ayaa la sheegay ilaa iyo hadda in ay laba yihiin midka labka ah ama ragga ah waxa uu qirtay in uu ka imaaday magaalada Muqdisho maalin saddexaad halka qofka dumarka ana lagu qabtay gumaca qoriga loo yaqaan hoobiyaha baadhis ayayna sheegeen laamaha ammaanku in ay weli ku hayaan dadkaasi iyadoo magaalada Jigjiga iyo gebiyahanba magaalooyinka deegaanka Soomaalida ay ka socoto baaritaan aad u xoogan amnigana si weyn loo adkeeyay kadib markii kooxo ka tirsan al-shabaab ay u tallaabeen dhinaca deegaanka Soomaalida inkasta oo ciidamada ammaanka deegaanku ay sheegeen in ay laayeen wixii dhankaasi u tallaabay wixii ka soo haray ay dib ayagoo baxsada u soo laabteen haddana howlgallo ay ka wadaan xadka deegaanka Soomaalida uu la wadaago jamhuuriyadda Soomaaliya si kastaba daawadayaal shakhsiyaadka hadda sawiradoodu uu idiin muuqdo ayaa la sheegay in ay sidoo kale xiriir la leeyihiin kooxo kale oo iyagana markaasi la tuunsan yahay in ay qayb ka yihiin qorshaha al-shabaab ay doonayso in qaraxyo ay uga fuliso deegaanka Soomaalida laakiin wadadan iyo dadka la qabtay hadda ayaa kullayba laga yaabaa inay fududeyso haddii ay jiraan kuwa kale oo magaalada ku jira oo ay isku xidhan yihiin amaba kuwan laftooda qasab dad baa ka soo horreeyay oo ay ku soo degeen oo mas'uulka ah oo aqoon u ahaa ma jira ruux dhagala indhala oo iska soconaya ayagana dadkaasi in ay la wadaagi doonaan laamaha amniga ayaa la rumaysan yahay khatarta ugu badan ee ururka al-shabaab ayaa waxay tahay qaraxyada iyaga oo dalka Soomaaliya qaraxyo aad u badan oo dad iyo dunyo badan galaaftay ka geystay intii ay ka dhaqdhaqaaqayeen dad la sheegay inay ku dhadhow yihiin ayaa qaraxii soobe ee sanadii 2017 inay ahayd baan filaya dhamaadkeeda ay ka geysteen magaalada Muqdisho dadka sidaas u badan ayaa ku dhintay oo dad shacab oo masaakiin oo aan waxba galabsanin qaraxyo kale oo iyaguna aan ka dhicin oo qaraxi shaamowkii warshada harkaha iyo waliba kuwa kale oo badan ayaa jira oo dad badan ay ku dhinteen waxaana intaasi oo qaraxa ay ka dhaceen meelaha dadka shacabka ay ku nool yihiin oo aan ahayn xirad dawladeed dad aad u badan ayaana ku dhinta mar walba qaraxyo joogta ayaa magaalada Muqdisho ay ka geystaan dhibaatada ugu badan ee ay geystaan ayaa qaraxyo ah taasi oo amniga ka qaada meesha dhibaatooyinkaasi laga fuliyo oo Soomaaliya ay la daala dhacayso ilaa iyo hadda dhibaatooyinka al-shabaab ay keeneen waxaana Soomaaliya jooga kumanaan ciidamo qiyaastii 20 kun ku dhadhow oo Afrikaan kuwaasi oo loo keenay in ay al-shabaab
ka celiyaan dadka Soomaalida ah dhibaatooyinka ay gaarsiinayaan macnuhu waa sidaasi waxaa loo sheegay oo marka laga hadlayo ciidamadaasi la oranayaa nabad ilaalin ayay u joogaan oo waxay la dagaalamayaan kooxaha al-shabaabka ah laakiin macnaha hadalka iyo muhiimaddu ciidamadan waxaa loo keenay in ay shabaab ka celiyaan Soomaalida sidaas ayay u joogaan waana hadalka markii macnahaasi uu yeesho waxaad fahmaysaa in ay yihiin cadow Soomaalida ku ordaya oo markaasi doonaya in ay dhibaateeyaan oo ay xasuuqaan oo ay saaxada ka saaraan dadka Soomaalida ah haddana ayaga oo doonayay in ay lug ahaan deegaanka Soomaalida ku galaan markii lala dagaalamay waxay bilaabeen qorshahani kale ee ah in ay qaraxyo la aadaan deegaanka Soomaalida taasi oo ah mid aad u khatar badan si kastaba daawadayaal balaarimaha ku aadan magaalada Jigjiga iyo waxyaabaha ay al-shabaabtan hadda la qabtay ay doonayeen inay ka geystaan wararkeena dambe ayaad wixii dheeraada faahfaahin ku maqli doontaan haddii alla idmo dhinaca kale haddii intaas aynu arrintaasi ku dhaafno magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaa la sugayay in galabta lagu dhawaaqo golaha wasiirada ee xukuumadda looga fadhiyay in uu soo dhiso Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxaa la sheegay in uu jiro kursi muhiima kaasi oo dib u dhigay magacaabista golaha wasiirada muran xooggan oo kursigaasi ka taagan yahay waa wasaaradaha Soomaaliya kamida waxa galabta dib u dhacay warkaasi aynu ku socono oo dib u dhac ku yimaaday qorshe ahaa in la saaro oo la bixiyo liiska golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya kuwaasi oo la filayay in lagu dhawaaqo galabta sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno madaxtooyada dalka Soomaaliya ee ilaa iyo shalay iyo maanta soo baxayay sababta ka dambaysa dib u dhacani ayaa waxa lagu sheegay in ay ahayd weli dood adag oo ka taagan qofka loo magacaabayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya siyaasiyiinta reer waqooyiga ayaa dood waxa ay ka keeneen in xildhibaan Biixi Iimaan Cige loo magacaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka kadib markii xalayto lagu qoray booskaasi sida ay noo xaqiijiyeen ila madax bannaan oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo waliba ila iyaguna dhinaca filla Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa galabta kulan dheer oo saacado qaatay waxay ka yeesheen mas'uulka ay u xulanayaan booskaasi iyo waliba dooda ka taagan xulashadooda Biixi Iimaan taasi ayaana la sheegay in ay keentay dib u dhacani ku imaaday in la soo saaro liiska golaha wasiirada xogta aynu helay ayaa waxay intaasi ku daraysaa in xukuumadda la soo dhisayo ay ku jiri doonaan siyaasiyiin ay ka mid yihiin Axmed Macallin Fiqi oo markaasi loo badinayo in uu noqon doono wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya ama wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dawladda Soomaaliya Xasan Macallin ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku jiri karo Cabdirasaaq Cumar Maxamed Dr. Cilmi Biixi Iimaan Cige Maxamuud Beene Faarax Sheekh Cabdulqaadir Abshir Bukhari Ali Balcad Ilyas Ali Xasan Khadiijo Maxamed Diiriye Daa'ud Aweys iyo xubno kale ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin golaha wasiirada ee qoran isla markaasina la doonayo in lagu dhawaaqo sheekada iyadana xasaasiga ah ee ilaa iyo hadda aan saldhiganin waa in ay wararka qaar sheegayaan in Mukhtaar Roobow oo dawladda u xiran ay macquul tahay in loo magacaabo wasiirka diinta awqaafta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah waxaana arrintaasi waloolaynaya xildhibaano ku dhadhow gudoomiyaha golaha shacabka lama oga waqtiga rasmiga ah ee la shaacin doono liiska golaha wasiirada waxaana socda kulamo gooni ah kuwaasi oo xoogaystay saacadihii la soo dhaafay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa ka jira mashquul aad u badan si kastaba golaha wasiirada laga sugayo ra'iisul wasaare Xamse ayaa waxay qaadatay waqtigii ugu dheeraa ee la sugo golo wasiiro oo Soomaaliya ay yeelato baarlamaanka Soomaaliya ayaa 10 cisho ugu daray markii waqtigii loogu talagalay inuu ku soo magacaabo ay ka dhamaatay 10kii cisho ayaana hadda sii dhamaanaysa 3 cisho oo kaliya ayaa ka dhiman haddii berrita laga reebana 2 cisho ayay noqonaysaa ilaa iyo haddana waxaa taagan ishaysigii ku aadanaa golahani wasiirada shakhsiyaad ama kooxo markaas ayagu milkiilayaal inay dawladda ka yihiin isu arka isla markaasina raggii garab taagnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kamid ah kooxaha ku dhagan golaha wasiirada oo ayagu markaas isu arkay in ay yihiin milkiilayaasha dawladda wax markaas ay sarxaali ka ahayn in uu meesha ka hirgalana aan ayagu rabin waxaa jirtay in mar la isku haystay tirada laga dhigayo golaha wasiirada oo kooxahaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka agdhawaa ay sheegeen in golaha wasiirada laga dhigayo ugu yaraan
28 arrintaasi oo in badan laysku haystay ra-iisul wasaare xamse ayaana arrintaasi si adag u diiday weliba 28 aan dhihina 24 wasaaradood oo dheeraada oo aan xafiis iyo dhaqaalo iyo maaltoona loo haynin ayay rabeen in lagu soo daro lagana gooyo wasaaradaha hadda jira laakiin ra-iisul wasaare xamse ayaa arrintaasi aad uga istaagay kadibna wuxuu ku guulaystay in asaga warkiisii la qaato ahaa in 25 wasaaradood ugu badnaan ay noqdaan wasaaradaha hadda wasiiradu ay ku shaqeeyaan ee Soomaaliya ayaana ah 26 wasaaradood haddii la dhaho wasaarado kale lagu darana waxay noqonayaan wax aad u tiro badan muhiimadana waxaa ah in wasiiro aan tiro badnayn oo tayo leh la magacaabo si kastaba golaha wasiirada ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo beri dambe iyo beriga kasii dambeeya 3 maalmood ee u dhiman sharci ahaan xamse cabdi barre inuu ku soo magacaabo golahaasi wasiirada ma fulayno in waqti kale loo kordhin doono oo baarlamaanku hortagi doono oo odhan doono hala igu daro waqti kale waxa ay ku qasban yihiin in ay soo magacaabaan 3daasi beri ee dhiman ee ay ku soo dhameeyaan wax kasta oo ka dhiman ayna ku dhawaaqaan golaha wasiirada ee aadka loo sugayo 3 cisho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horey uga dhamaatay 30 maalmood ee uu sharcigu siinayay haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada su'aashaas ayaan hordhigay Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah qodobka koowaad doorashadii la kala saameyn kala aragti duwanaansho bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasaddu ay kala fogaadaan bay keentay qodobka labaad maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uu la jirin walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama ka soo horjeeday labada maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay dad badan baa awood ku leh dawladana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka baarlamaanka markii la soo dhiso kadib dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray saa darteed in dadka la kala hufo nin walba la qanciyo ugu yaraan 50% iyo wax lagu la isku waafaqsan yahay in la keeno ayaa waxaan isleeyahay waxay dib u dhigtay soo magacaabida ra'iisul wasaaraha wasiirada waxa kale oo qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dawladani waxay rabaan inay faa'iido helaan iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dawladii la magacaabay qodobka ugu dambeeya shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dawlad ka duwan dawladihii hore in la soo dhiso iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynaha wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyay in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay malkudhigga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah yani arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ay sida ay rabeen ay waayaan taasina ay keento in muran iyo qalalaasa siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dawladnimada lagu qaybsado ciidanka lagu qaybsado ama dawlad heshiis lagu yahay in la dhiso sidaas ayaan ilaalinta daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoon-yahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada sidii hore u dhici jirtayna inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka sadarteed labada qodob waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirigeliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka junfadiisa ka soo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas waxaa kaloo iyadana dhiirigelin haysta si guud ahaan dawladihii la soo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yareeyaan in ay dawladdu
baarlamaanku ay buuq iyo muushinna ka keenaan golaha wasiirada dhanka kale maamul goboleedyadu awood iyo aragti bay ku leeyihiin dowladda dhexe maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe saa darteed waa suurtagal wayna tahayba